بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan dhibta iyo rafaadka la qaybsanayaa dadka oo waxyeelada ka soo gaartay roobabkii Allah subhanahu wa ta'ala inoo keenay waa raxmad lagu diirsado hadana wadata maartay qasaaraheeda maartay algaal hadda waxa soo gaartay maartay dib aad u fara badan dad ayaa ku xoolo waayay dad ayaa ku hanti beelay dhibta ugu daran waxay tahay maartay buundadii isku xireysay magaalada ayaa maanta go'an oo maartay baabuur aysan mari karin waxaan rabnaa marka u kurgelitaankii maanta u kurgelnay maartay aygaarkii maanta saameynta uu ku yeeshay roobabkii waxaan rabnaa inaan la qaybsano dhibkaas waxaan leeyahay waa idin la qaybsanaynaa waana maartay idinka reeligelinaynaa maartay soo daahitaanka idinka soo daahnay laakiin waxa idin ballan qaadinaa insha Allah ta'ala sida uu dhaqsiyaha badan in buundadan lagu dhiso وانا وشيغينا مارتي وانا غارسينينا مارتي مدحدا سare ee gobolka مارتي gobernatoraha iyo ku-xigeenadiisa ilaa heer degmo ilaa heer tuulo qaabkii wax looga qaban lahaa laakiin insha Allah ta'ala waa lagu soo laabanaa waana la imaana waana laga qayb qaadanaya dhismaha buundadan waayo waa halbowlihii isku xiraayay maartay dadka raashinkoodii isku xiraayay ciidihii ayaa soo socdo waxa isku xira maartay dadka waxa dhamaay wuxuu ka imaadaa maartay raashinka dhan wuxuu ka imaadaa kor iyo maartay dhankaas boosaaso waxaan leenahay waa idin la qaybsanaynaa waan idin ballan qaadanaynaa insha Allah ta'ala in la dhiso dal iyo dad meeshii aan joognana waxaan gaarsiin doonaa maartay waxyaabaha hadda socda iyo dadaalada la wado guddiga gaadiidley la wada waa la hadalnay waxayna noo sheegeen in hadda ku dhis ay wadaan shaqo la yiraahdo isxilqaan waana ku ammaanayn shaqadaas ay wadaan isxilqaan anagana ku garab istaagayna hadii la yiraahdo waxaan gacan ka geysan karana waa ka geysanayna maalmaha soo socda hadii la yiraahdo waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq burburka wadada soo gaaray hadii deegaanada hoos yimaada beledweynaha kormeertay waxyaabaha indhaada ku saaratay oo qabanayeen maxaa kamid waxaa kamid horta burbur fara badan ayaa waxa ka muuqda jidka qaasatan roobka hadda ugu dambeeyay saameynta uu geystay aad u fara badan dhibta ugu weyn hadda haysta waxay tahay dad badan oo maaragtay ku hanti beelay ku xoolo waayay maaragtay ku guriyo beelay midda ugu daran oo dadka dhan ka wada dhaxaysana waxay tahay buundadan go'an oo maaragtay maanta baabuur aanan mari karin oo aan leenahay waa idin kala qayb qaadanayna dhismaheeda sida uu dhaqsiyaha badan hadii Ilaahay yiraahdo warbixintana waa gudbinaynaa waxaan isku dayaynaa buundadan bas maana buundooyinka dhan oo laga shakisan yahayna in la wada dayactiraa isku dayaynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u gudbinayaa wasaaradda ee qusoosay reportkan يعني maaragtay dhowr wasaaradood oo joint interministerial ah ay noqonaysaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dib u heshiisiinta iyo wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka dib kastoo dhacan waxay u baahan tahay qofkii ku shaqada lahaa in loo geeyo insha Allah ta'ala waxaan la qaybsanayaa wasiirka maareynta iyo masiibooyinka dadkii meeshan ku hanti beela qaabkii wax loogu qaban lahaa iyo maaragtay wasaaradda howlaha guud idan in la gaarsiiyo qaybteeda laakiin waxaan ballan qaadanayaa hadii Ilaahay yiraahdo in dhibta kasta oo ka dhaco maaragtay carri hiiraan maartay carri hiir shabeele inaan idin kala qayb qaadan hadii Ilaahay rawaana mahadsantihiin